dhulgariir awood badan oo saakay la sheegay inuu ku dhuftay bariga ruushka kaasoo khasaaro badan geystay tsunami kusoo rogay jasiirado dowlado badan oo ay ka mid yihiin maraykanka, jabaan, mexico iyo dalal kale oo iyaguna baqdin ka qaba in tsunamidu ay markaa badda ay kusoo rogto dhulgariirkii ka dhacay ruushka aawadii. haddaba wararkii ugu dambeeyay dhulgariirka baaxadda leh ee adduunka ka dhacay saakay ayaynu barnaamijka ku bilaabaynaa. telefishinka aljazeera wuxuu leeyahay waa dhulgariirkii lixaad ee ugu awooda badan taariikhda adduunka soo maray. haddaba sirta ka dambaysa maxay tahay in dhulgariir xoog gaale eeg ay ruushku la kulmaan maanta ayaa la leeyahay. haddaba warbixintu way sii socotay. waxaa la leeyahay 30 bishan aynu ku jirno oo maanta ah July 2025 dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 8.8 halbeega dhulgariirada lagu cabiro ee la yiraahdo Richterka ayaa wuxuu ku dhuftay jasiiradda la yiraahdo Kamchatka oo ah dhanka bariga fog ee Ruushka ku taala. haddaba waxaa la sheegay in dhulgariirkan uu yahay mid ka mid ah dhulgariirada taariikhdan casriga ah ee dunida ku dhuftay. haddaba dhulgariirkan ayaa la sheegay inuu dhibaato weyn u geystay jasiiradahaas isagoo burburiyey guryo. waxaana la sheegay in markaa dalal kale oo dhowr ah ay heegan galeen. waxaa lagu tilmaamay dhulgariirkii lixaad taariikhda inta la og yahay ee la diiwaan geliyey ilaa hadda. waxaana la sheegay in markaasi uu dhibaato weyn u geystay deegaanadii uu ku dhuftay. mandiqada la yiraahdo Mawli ad-Tashliih ayaa waxaa la sheegay in 35 kilomitir dhulka ay u qodantay dhinaca badda. waxaana la sheegay in khasaare weyn uu soo gaaray. dowladaha Jabaan, Maraykanka iyo Indonesia, Mexico iyo dalal kale ayaa iyaguna waxaa la sheegay in dhulgariirkan saameyn weyn uu ku yeeshay. dadka ayaa laga daabulayaa gobolka Hawaii waddanka Maraykanka. goobta nuclearka laga dhaliyo ee Jabaan ayaa iyaduna la sheegay in dadkii ku jiray laga faaruqiyay. jasiirada ka tirsan Jabaan ayaa dadka laga raraya. booliiska ayaa dadka u sheegay inaanay u dhowaan badda iyadoo laga baqayo saameynta dhulgariirka weyn ee dhacay in badaha qaarkood uu kusoo rogo tsunami oo magaalooyin dhan ay biyuhu qarqiyaan sida la leeyahay. marka warbixinada maanta adduunka ugu weyn ee taagan waa dhulgariirkaas. marka maxaa laga baqayaa? dadka khubarada waxay leeyihiin dhulgariirkii wuu dhacay mar horeba. saaka aroortii u dhacay dhulgariirku wax yar oo dhagdhag waa dhammaatay. laakiin waxaa laga baqaa maxay? dhulgariirku wuxuu marka saameyn ku yeelanayaa badda gudaheeda. hirarkii badda ayaa ruxmaya. marka way ruxmeen. waxaa laga baqaa marka hirarkaas badda oo dhulgariirku ruxay inay inta soo baxaan iyagoo isdaba maraya inay magaalooyin ku dul degaan. ilaahu namooti waayo. baddii oo soo kacday oo magaalo dhan ku habsatay maxaa ka haray magaaladaas. marka meeshaas iyaduna dhibaatadaasaa laga soo sheegay oo xaaladdu marka waxaa leeyahay saakay cabsi weyn ayaa ka jirta. intaasoo dal ayaa dhibku markaa ka baqaya in saameynta dhulgariirku uu ku yeesho. marka qodobka dhulgariirka oo warka ugu weyn ee adduunka saaka saaran ah intaa ayaynu kaga gudbaynaa. waxaynu u gudbaynaa sheeko xiiso leh. sidaa la socotaan 28 iyo 29 sacuudiga iyo faransiiska shir ay hogaaminayaan ayaa New York ka dhacay oo la yiraahdo al-xal ad-dawlatayn. halku wuxuu ku jiraa 2 dowladood bariga dhexe. wax kale ma jiraan. marka maxaa loo baahan yahay? dowlad Falastiin in la dhiso. Maraykan iyo Israa'iilna meel taagin. waxay leeyihiin anagu shirka iyo waxa kan ma ogolin. dowlad ma ogolin. Falastiiniyiinta dowlad ma rabaan. nimankan Xamaas la leeyahay inay maartay jabhada ahaadaan nala diriraan sidii markii hore sameynayaan. marka qiilay waxay ka dhiganayaan Xamaas ayaa hubkii haysata. u fiirsada.
marka dowladihii marka qorshaha waday waxay ku qasban yihiin marka si ay dowlad Falastiin u helaan in marka la baabi'iyo jabhadaha hubkoodana sulda Falastiiniya la isugu geeyo ama maamulka Falastiiniyiinta in hubkooda maartay meesha la geeyo dowlad loo aqoonsado sida xaaladdu ku dhamaato marka waxa laga baqayaa marka maxay tahay Hamas iyo muqaawamadu waxay leeyihiin Mahmoud Abbas oo maamulka Falastiiniyiinta leeyahay ayaga Israa'iil waa isku mid hubkeeni inta dhiibno hadii hadana dowladna loo aqoonsan waayo maxaa marka anaga damaanad maxaa haysanaa waxba ma haysano marka waxa leeyahay dowlad in la dhisaa rabaa Falastiin inay dowlad yeelato dowladaha marka ku dagaalamaya hawshan oo marka dowlado waaweyn ayaa marka waxay rabaan Falastiin dowlad marka loo dhiso nimankan jabhadaha kulli inay dowladda ka mid noqdaan oo dowlad Falastiin hal xaba ay noqoto Israa'iil iyo Falastiin bas meesha laakiin Hamas iyo Islamic Jihad iyo waxa kan iyo kulli waxaan inta marka waxaan meelaha daadsan yihiin marka dowlad ma heli kartaana leeyahay kuna Falastiin daatiyin marka hadda sharciyada kaliya ee Mareykan iyo Israa'iil celin kara oo qaban kara waxay tahay wixii Falastiin ahaa oo dhan hubkoodii waxay soo geysteen maamulka Falastiiniyiinta si ay dowlad u noqdaan marka qorshahaas xataa dowladihii saaxiibada dowla ahaa Hamas ayaa marka soo dhaweeyay waxa loo arkay al-hal al-wahid halka kaliya ee dowlad Falastiin lagu heli karo laakiin dowlad Falastiin aan rabaa hubkeygana jabhadnimaan u haysanaa macquul ma aha alle marka sheekadu marka halkaas ee marka iskaga milqan tahay marka waxa leeyahay dowladihii xataa Turkiga iyo Qatar iyo aadka Hamas ugu dhawaa oo muqaawamada u dhawaa ayaa hadda waxay taageereen leeyahay fikradda ah in waxa kan dowlad laga dhigo hal meel la isugu geeyo Israa'iil waxay u soo dan iyo dam leedahay inay qaadato dhulkan gaar ahaan Gaza maba qarsanayaan ninka Smotrich la leeyahay waa ninka yiri waxaan dhan waa qaadanaynaabe Gazadan xoogan ku qaadanaynaa marka nimankan dhul cusub iyo dal cusub inay qaataan rabaan marka awood badan oo aad iskaga dhicisana aanay hayjin marka waa in marka la isticmaalaa taatiko kale siyaasad dowlad nabad wixii marka halka laga soo maraalay marka sheekaduna way adag tahay nimanka la leeyahay maaratay Hamas iyaguna waxay taagan yihiin hubkeena waa line caswa aan laga gudbi karin inta Israa'iil gumaysi wado oo dhul Falastiin ku jirto annagu hubkeena waa haysanin marka sheekadaas marka halkaas aaday marka isaga milqan tahay adikuna kulli fakari aragti waxa qabtaan waa noo soo diri kartaan haddaba marka aan idin soo warbixinta saaka laga qoray sheekada jaridda la yiraahdo Ra'yul Yawm waxay leedahay dowladaha Carabta waxay dalbanayaan oo ay ka dalbadeen xarakada Hamas inay soo afjarto marinka Gaza joogitaanka ay Hamas joogaan inay iska soo gabagabeeyaan oo xukunka deegaankaasna ay iska dhaafaan hubkoodana ay ku wareejiyaan maamulka Falastiiniyiinta haddaba marka warbixinta oo sii socotay waxa la ilaa 17 dowladood oo uu ku jiro Sacuudiga iyo Qatar iyo Masar iyo ay ku jiraan ayaa talaadadii xarakada Hamas waxay baaq u direen oo ay u sheegeen inay hubkooda ku wareejiyaan maamulka Falastiiniyiinta intii lagu guda jiray shirkii qaramada midoobay ka socday ee markaa ciwaankiisu ahaa xalka laba dowladood in la helo gobolka bariga dhexe haddaba jiradda la yiraahdo New York Times ama wararka ka imanaya magaalada New York ayaa waxay sheegayaan in markaa Faransiiska iyo Sacuudiga shirkan ay qabanqaabiyeen ay markaa wixii ay isla arfgarteen ay isku raaceen dowlado waxaana kamid ah 15 dowladood oo hadda hawlaha xoog u soo galay Brazil, Canada, Turkiga, Urdun, Qatar, Masar iyo Ingiriiska iyo midowga Yurub iyo jaamacada dawlad Carabiya way marka waa u jeedaa dowladihii adduunka oo dhan marka waxa la isla fahmay waxa kan ma sii socon karaan maalin walba 100 qof in la dilo la gaajeysiyo dadkan lama sii fiirsan karo Israa'iil iyo Mareykan waxa kaliya
oo la isaga celin karo waxay tahay war dadkan dowladnimaan u ogolnahay jabhadnimo waa dhammaatay laba dowladoodoo darisa nabad ku wada nool falastiinna dowladeeda israa'iilna dowladeeda dhulkan ay israa'iil xooga ku haysatana ha ka baxdo falastiin dowladeeda ha maamulato laakiin haddii la yidhaahdo hubkayga waa haysanaa hubka aada haysatida waxay leeyihiin maxaa xal ah ma iska celin kartaa nimanka maalin walba dadkaaga waa la laynaya marka sheekadu markuu halkaasay maraysaa laakiin nimanka xamaas laftirkooda waxay leeyihiin war nimankan yaa damaanad qaadaya hubkeennii haddaan dhiibno oo magaaladii xukunkeedii iska dayno hadday yimaadaan ku habsadaan ay qaataan yaa nooga soo dhicinaya ma sacuudi iyo faransiisa israa'iil meelay ku habsatay ka qaadi kara yaa nooga qaadaya yaana damaanadaasna siinaya marka sheekadii oo dhan marka halkaa qoortii iskula jirtaa waa ujeedaa waa isku bilqanta maqli jirta marka baashii madaxa isla gashaa la leeyahay marka hawshaasu halkaasay maray kulay idinkuna fakari aragti bal dhinac u bixiya waxay idinla tahay bal soo qora